album and a highly grossing world tour, YG has seemingly decided to give Blackpink more music. maxaad kala socotaa sheekada Blackpink ee weegan qabsatay baraha bulshada ma dhabaase shirkadda YG Entertainment inay soo saartay bayaan kaasoo tilmaamaya inay kala diri doonto kooxda amaba ay gali doonaan waxa loo yaqaano hiatus maxaa sababay in gaar loo beegsado Kim Jisoo iyadoo la leeyahay waa ay baxaysaa dhamaadka bisha 8aad ee Agosti ayaa ma aynagu soo hadan ma dhaba arrinka Google tilmaamaya in xogteedii laga waayo Blackpink mise waxaan oran karnaa kaliya waa error ku yimid dhanka platformka iyo Google-ka maxaa ka jira Blackpink Rose inay ka hadashay wax ku saabsan mustaqbalka kooxda iyo inay sii socon karaan iyo gabi ahaanba mawduucaasi kala diritaanka intaas iyo qodobo kale oo xiiso leh ayaan kaga jawaabi doonaa barnaamijkeena maanta balse ka hor inta aynaan si weyn u dhexgelin sheekada oo dhan waxaan rabaa inaan idinka mahadceliyo sida quruxda badan aad ula falgashaan markasta muuqaaladeena idinkoo la ikraynaya subscribe dhayo ku soo biiriya channelka iyo YouTube-keena Baldab TV ana waxaan idin leeyahay waan idin ogahay midaasi Netizens were shocked when Jisoo's profile could not be found while searching for Blackpink members on Google. labadii cashe u dambeysay ayaa waxa saayid u batay hadalhaynta ku saabsan in fanaanada iyo xidigada kooxdaasi Blackpink Jisoo ka tagi doonto tiimka iyo isla kooxdaasi Blackpink arrintan oo ahayd mid kadisa ayay si weyn uga gadoodeen taageerayaasha iyo faniska kooxdani iyagoo dhibsanaya inay gabi ahaanba waayi doonaan mid ka mid ah afarta taayir ee ku socota kooxdooda iyo gabadha lagu magacaabo Kim Jisoo sheekadan ayaa ka bilaabmatay markii taageero ku qoray barta Google magaca kooxda Blackpink isagoo rajaynaya inuu helo xog ku saabsan tiimka iyo update-ka gabi ahaanba kooxdaasi balse wuxuu soo saaray natiijo aanu ku farxin taasoo aynu gabi ahaanba soo saaray misara muujiyay kaliya 3 xubnood oo ka mid ah tiimka Rose, Jenny iyo Lisa isagoo qariyay magaca Kim Jisoo iyo gabi ahaanba xogteeda taas ayaa abuurtay gabi ahaanba shaki weyn wuxuuna ka sameeyay muuqaal kaasoo ku baahaya baraha bulshada isagoo gabi ahaanba ku soo qoray Jisoo 7 sano ay ka mid ahayd Blackpink waxa uu hawada ka saaray xogteeda macquul ma tahay inay ka tagayso kooxda oo ana midda keentay in la isweydiiyo bixitaanka Kim Jisoo iyo inta ka hadhay gabi ahaanba kontraaga ay kula jirto shirkadaasi YG Entertainment middan wuxuun baan odhan karnaa waxay ahayd error dhanka Google-ka sababtoo ah haddii aad ku qorto magaca Blackpink waxaa kuu soo baxaya 4 xubnood iyo dhammaan xogtooda isla daqiiqadan aynu ku jirno waana wax iska dhaca in marar badan dhanka social media ama platformyada kala duwan gabi ahaanba oo ka dhaca qalqal noocan ah ama error kaasoo gabi ahaanba qaribi kara wax badan sida ku dhacday hadda gabi ahaanba tiimkaasi Blackpink. One fan commented, Jisoo isn't a part of BP member in Google in her 7 years. Kontraaga ay kula jirto wakaaladdan YG Entertainment kooxda Blackpink ayaa ku eeg bishii 8aad ee Agosti sanadan 2023 oo gabi ahaanba inaga xigto wax ka yar 2 bilood marka la gaaro muddadaas ayuunbay shirkadu awooddaa haddii lagu heshiiyo inay ka saxeexdo xubnaha tiimka heshiis cusub amaba midaasi waxay noqon kartaa mid lagu fashilmo oo ay sidaasi ku kala dhaqaaqaan balse inta ka horeysa muddadaas waxaa laga yidhaahdaa tiimkan kaliya waa saadaal iyo maxay kula tahay balse haddana sidaasi oo ay tahay waxaa jirta rajo taasoo tilmaamaysa in kooxdu saxeexi doonto heshiis cusub dhowaan ayay ahayd markii Blackpink Rose ka hadashay wax ku saabsan kooxda kadib markii ay tiri gabi ahaanba hadal u dhigan sidan Blackpink waa ay jiri doonaan waxaan ahaan doonaa Blackpink waxaa jirta mustaqbal iyo future u baahan gabi ahaanba in laga fakaro waxaan rajaynaynaa inaan ku sii soconno mustaqbalkeena si wada jira hadalkan ayaa rajo weyn ku abuuray taageerayaasha kooxda Blackpink iyagoo u turjintay gabi ahaanba inay ka hadlayso kontraaga iyo heshiis cusub ay la galay doonaan isla shirkadaasi
YG Entertainment. Pink members don't like each other and want to disband since fights within the group are not a good sign according to ka hor showgii Melbourne ee ka dhacay Australia weekend ayay shirkadda YG Entertainment soo saartay bayaan kaasoo ay gabi ahaanba kaga hadlayso kooxda. isla bayaankaas ayay ku tilmaantay shirkadda YG inay gabi ahaanba kooxdu daashay una baahan tahay nasasho iyo inay qaataan waqti raaxo oo ay gabi ahaanba isku ilowsiyaan hawlaha ay qabteen iyo bandhigyadii cadaabta ah ee sanadka iyo albankooda Pumping. qoraalkaas oo aad u kooban ayay gabi ahaanba shirkaddu ku tidhi hadal u dhigan sidan: After the tour, dhammaan xubnuhu waxay heli doonaan waqti nasasho oo qurux badan. inta aan ognahay tiimku waxay u soo shaqeeyeen si adag ilaa iyo inta ay gaadhayaan diyaargarowga showga Australia ee Sydney. markaas kadibna waxay qaadan doonaan break iyo nasasho taasoo isku ilowsiinayaan gabi ahaanba waxqabadkii aadka iyo gabi ahaanba hawlahoodii sanadlaha ay soo qabsadeen. Has said after the tour, the members will have a break from work. For what we know, the members walow hadalkan taageerayaal badan ay u turjunteen gabi ahaanba inuu yahay kala dirista iyo dhamaadka kooxda, haddana ma jirto sabab loo yidhaahdo waa dhamaadka. waxaana jirta rajo tilmaamaysa heshiis cusub iyo inuu gabi ahaanba sii socon doono mustaqbalka kooxdu oo marnaba aanu si fudud ku dhammaan karin. haddaba daawade, adigu sidee ayaad u aragtaa sheekadan? macquul ma tahay in la gaadhay dhamaadka kooxda Blackpink iyo inaanay saxiixi doonin heshiis cusub? ma odhan karnaa keliya waxa loo beegsanayo Kim Jisoo ama loo leeyahay way tagaysaa keliya weerarka ku yimid gobolka ee gabi ahaanba wax kale ma jiraan? mase u aragtaa inay saxiixi doonaan heshiis cusub oo ay kula midoobi doonaan mar kale shirkadaasi gabi ahaanba lagu magacaabo YG Entertainment? hoos ugu dhaaf fikirkaaga sidaad u aragtay sheekadeena maanta. si lamida muuqaalka aad jeceshayna ku xigsiino midkan like garee videoga, subscribe channelka YouTube-keena Baldaab TV, lana wadaag saaxiibadaada haddii ay macquul tahay. mahad sanid.